السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وايدين سلامي إلهي وحايدين كجرجينا يا عمري دير بعد ما يسترن يعرف ما ظن إن شاء الله ملك سجوكتان كسر دواذا channel كس أنفع كعم فرن ودنا فرن وجه فرن كسر دواذا واد ما هتسنتين دتكين هوري وحرنا دتك عصبنا السور دواذا فضلا أدي وآد وما هتسن لايك شير سبسكرايب صار وحي فرينا هنهوسي يقرب ما هتسند maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago 7 nooc ee dadka kamid ah ee aadan la wadaagi karin ganacsi ama ganacsi la sameyn karin 7daas nooc oo ku keenayo dib ama lugooyo ama ma aragta horsacad badnayn marka 7daas nooc aan jeclaystay maanta inaan idin la wadaago iyo sida ku ogaan lahaydeen 7daas nooc ee dadka u kala baxaan ee ganacsiga aad la sameyn karin soo dhawo marlaad qofka koowaad marka ee dadkaas kamid ah iyo nooca uu yahay isa ku ogaanaysid qofkaas koowaad waxa qofka ixtiraam lahayn qofka markuu naftiisa ixtiraamaynin qof kalena ma ixtiraamayo qof aan ixtiraam u haynin khibradaada aqoontaada maxay ahayd waxtarkaaga dadaalkaaga rabitaankaaga horu socodkaaga ma aragtay qof ma aragtay oo ixtiraam asagaba isku haynin adigana shakhsiyadaadii adiga waxa tahay ku haynin qofkaas no maya lama sameyn kartid ganacsi waayo qofka markuu ixtiraam leeyahay waxyaabo badan ay imaanay marka dadka wada ganacsanaysaan ixtiraam daradana waxay noqonaysaa lugooyada koowaad ee ka hor imaanayo ganacsigiina iyo guusha aad ka gaari doontaan ganacsiga aad wadataan soo marka qofka haduu ixtiraam lahayn qof asaga is ixtiraamayna adna kuma ixtiraamayso ma lahayn antiisa daryeela tukala ku daro so keeni labaad marka wuxuu noqon doonaa qofka labaad waxa qof muran badan oo dood badan oo wax kasto oo aad isku daydaan muran ama dood ka keenayo qofka markuu muran ama dood badan yahay oo asaga doodiisa iyo murankiisana uu haynin oo lahayn wax sal iyo baar leh wax cadeena uusan u haynin ama ay u haynin iska murmayaba ma aragtay markaasna qofkaas waxaad u badan tahay guul darro inaad ganacsigiina kusoo gabagaboobo sababtoo ah waqtiga dhan wuxuu idin kaga dhumayaa muran iyo dood meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto bala aqoonin intaad ma aragtay aad maxay kobci lahaydeen kori lahaydeen wax cusub keeni lahaydeen oo wax shaqeynayo dadku baahan yahay keeni lahaydeen muran iyo dood qoorta kuugu jira habeen iyo maalin ama ay kuugu jirtaa soo qofkaas iska ilaali because guul iyo horumar ganacsiga uma keenayo sababtoo ah wixii ma aragtay xumaasa u bedel lahaydeen wixii samaasa u sii wadi lahaydeen sida oo guuri isku dhihi lahaydeen wax kala ku misweydiinaysa qofka saddexaad qofku noqon karo qofka saddexaad waxa weeye qof aan aamin ahayn qoftiisaba isku aaminayna asaga qof shaki badan asaga iska shakinayo qof walba ka shakinayo oo wax walba ka shakinayo oo waqtigiis dhanba shaki ku lumiye qof ma aragtay aan aamin ahayn la aamini karin xoolo lagu haleyn karin soo marka sida ku ogaanayso waxa weeyna adiga soo baaxto qofkaas intaad ganacsi la galin oo xoolo isku darsaneen sababta ah qofka markuu aamin ahayn lugooyo ay maan karto iyo waqti lumis iyo dhibaato kale oo kasii daran oo ka soo kabsan karin marka waa muhiim qofkan calaamada saddexaad ku aragtid oo aan aaminka ahayn inaad waxba ku darsanin sababtoo ah hadhoodii waa ka shalayn kartaa dhibaato kale hor laha kaaga imaan karto soo qofkii inuu aamin yahay waxa ku ogaan kartaa inaad soo baaxtid iyo inaad waqti siisid aad su'aalana weydiisid ka bacdina ilaahay isku xirtid qofka afraad waayo qofka afraad yuu noqon doonaa qofka afraad waa qofka afraad oo qofka degdeg badan leh degdeg badan oo mar walba wax walba degdegayo ma fahamtay wixii hadda meeshaan ma aragtay digsiga hadda sariir dabka la saaray wuxuu raa daqiiqad gudaheeda inuu mirihii wixii la karinayo bislaadaan qof ma aragtay aan samir lahayn oo mar walba degdegayo meel uu ka degdegsan wuxuu degdegsan yahay ogeyn ogaada oo xasuusnaada in ma aragtay shaydaanka uu degdeg badan una fiicneen marka qofka markuu qof degdeg badan yahay uu ku dhaho okay waxaan hadda bilaabnay isla hadda waa inaan ka faa'iidno qofkaas marka waxa ogaanaysaa samar ma inuu lahayn ilaahayna muxuu dhahay inna allaha maca saabiriin ilaahay wuxuu la jiraa dadka sabarka badan leh wax walba bilaawid waa inaad sabar ku dhamaysid waayo
qofka shanaad ama nooca shanaad ee aad ku aragtid dabeecadahan ee adag tahay ama dhib noqon karto inaad ganacsi la samaysid waayo qofka shanaad marka waxa waaye qof aan ogeyn waxa uu rabo ama waxay rabto waxaan aad sameynaysiin waxa ugu dambeynta ee ka rabaan ee u cad un waa lacag wax kaleeto isbedel kale oo faa'iido leh ee ka og yihiin ma lahan wax ay og yihiin ma laha waxay rabaan ma ogaan way iskaga jiraan waxaas way iska dhaxyaacayaan because meeshii loo dido un bay u didayaan ayagoo fariisanin oo isweydiinin maxaa aniga ka rabaa waxaan maxay ka og tahay maxaan ka rabaa rabitaankiisa dhabta ah ee runta ah aan ogeyn intaana ka ahayn lacag keliyana looma gala ganacsi soomaha faa'iidada inaad dadka u faa'iidaysid waa muhiim ah wax dadku u baahan yihiin ma aragtee dhinacyo badan qofkaas markuu adkaanaysa inaad guul wada gaartaan qofkii lixaad waayo yuu noqon doonaa qofka lixaad yaa kula tahay inuu noqon karo ama dabeecadahee ku ogaan kartaa qofkaas inaada ganacsi la samayn karin waayo hadhowdii inaad guul daraysato ma rabtid qofka lixaad waxaa weeye qof dadaal yar duco yar balse dadnimana yar oo ma aragtay wax awood been wixii gelinaynin balse rabo wax ugu badan wax ugu fiican asagoon isla rabo ama iyadoon isla rabto waqti badan ma gelinayaan duco badan ma gelinayo ilaahay iskuma xirayaan dadaal badan ma gelinayaan waa iska seexnaan lacagteeda lacag ha ii dhashay camal ay joog ee rabaan marka qofkaas oo kale ganacsi ma la samayn kartid sababtoo ah waa ku guul daraysan kartaa dadaal badan iyo sabar badan iyo dhib badan iyo dhafar badan iyo waxaa loo baahan yahay ma aragtay duco badan marka qofkaas wax yar uu gashtay uu dadaal yar yahay wuxuuna doonayaa wax badan inay ugu soo laabtaan caqli darro soo maahan qofka toddobaad waa qof aan aqoon u lahayn ama ogeyn waxa ay iibinayaan ama waxay gadayaan iyo waxaan qiimaha ay ku fadhiyaan iyo waxaan baahida loo qabo iyo waxaan maaragtay in la iibsan karo iyo waxaan inta u baahan tahay iyo waxaan waxa laga filanayo iyo waxaan inta ma aragtay inta aad gelinaysid inta ka faa'iidaysid iyo inta waqti aad siin doontid marka fadlan insha Allah tii ugu dambaysa waaye like share subscribe samee aad u mahadsan dadka la wadaag mar dambe xiisa leh insha Allah waa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa aragti dambe xiisa leh shukran aadan iyo channelkiis anfa assalaamu calaykum